haddaba safarka farmaajo ee asmara ayaa cabdilcasiis xuseen waxa uu ka wareystay daahir maxamuud geelle wasiirka warfaafinta oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa safarka xilligani ku soo beegay mandiqada waxaa ka socda dhaqdhaqaaq nabadeed oo maaragtay meelo badan laga taaban karo sidii laakiin arrinka booqashada madaxweynaha Soomaaliya oo halkan ku yimid wuxuu tarjumad ka yahay madaxweynaha Soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha dareensan xiriirka labada shacbi sooyaalka ah in la soo gaaro marxaladii siyaasadeed loo tarjumay xasan la socodsiin arrimahaas iyo arrimihii kale oo khuseeyo masaalixda labada dal ha noqoto mid gobolka ka socoto ama Itoobiya ama Soomaaliya ama waxaan ku idhahdaa Kenya ama wadamada bariga Afrika oo marka walaal waxaa loo soo dhoofay waa xiriir labada dal ah markiisa sidaas waay waa tahay wasiirka warfaafinta Eritrea wuxuu qoraal kooban ku sheegay in kulan dhacay oo labada madaxweyne ay wada hadleen marka maxaa kulankaasi looga hadlay maanta oo xadana maxaa la filayaa in la sii anbaqaado weli maalmihiina saacado baan dalka joognaa labada madaxweyne way kulmeen markay yimaadeen hore way ka wada hadleen waa xiriirka labada iskaashiga waa taariikhda sooyaalka ah oo marka hore labada wasiir waa ay la joogeen taariikhda sooyaalka ah iyo marxaladii kala jeesay halganka iyo arrimo badan oo noocaasa looga hadlay dabcan waxaan rabnaa oo aan u nimid in arrimo kala gedisan oo dhaqaaluhu kamid yahay oo ganacsigu kamid yahay oo siyaasadu kamid yahay iyo in safaaradaha la isdhaafsado arrinkaasna waa arrin la go'aamiyey waaye safaarada in xaggaba laga furo waa tahay marka goormaa lagu heshiiyey in safaaradaha labada dal Asmara iyo Muqdisho laga kala furo waxay go'aankay gaaraan laakiin hadda tafaasiisha iyo waqtiga iyo inta loo soo magacaabayo waa wasaaradaha arrimaha dibadda iyo kanaan noocaas ay ku imaanay kaliya laga sheegi karo waxay tahay dhawaan inaad safiir Soomaaliyeed oo magaalada Asmara joogo iyo mid Eritrean ah oo magaalada Muqdisho jooga aad arki doontaan sida ay labada ay ku heshiiyeen waa gartay maxaa kaloo lagu heshiiyey labada madaxweyne maxaa kaloo ay ku heshiiyeen hordhaca heshiiska community waxaa kasoo saari doonaa wixii la soo qaaday oo faahfaahsan weli kulamadii iyagoo isla jooga ay socdaan arrimaha marka tafaasiisha gadaal ay kasoo baxaysaa laakiin nuxurka waa xiriirka labada dal gobolka waxa ay ka noqon karto iyo arrimihii kale oo labada dalba ay xiiseynayaan heer gobol iyo heer caalami intay noqoto waa tahay wasiir heshiiska Eritrea iyo Ethiopia ay gaareen waxa door weyn ka ciyaartay dawladda Imaaraadka Soomaaliya iyo Imaaraadkuna xaaladda ama xiriirka ka dhaxeeya waa la socota inaan u wanaagsanayn madaxweynaha Eritrea iyo Eritrea waxay xiriir dhow la leeyihiin Imaaraadka marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo waliba sidii la isugu soo dhaweyn lahaa mawduucaas waxa horta aan waxyar xasuusiyo dawladda Imaaraadka iyo Soomaaliya xiriirkooda marxalado kala gedsan maraa laakiin waa in la ogaado dawladdaas inaan dawladda ayaan nahay dawladda waala aan nahay waana saaxiibo kale aan nahayn ayna kulminayaan maxaasil dawliya dawladda Soomaaliya muddadii dadka uu soo bilaabo khilaafka uu soo bilaabo ilaa iyo hadda waxay xiiseynaysay ka howlaneen in arrimahaas la hagaajiyo dabcan dawladda Eritrea iyo Imaaraadka isku fiican waxay kaalin mugla oo macno la ka qaadan kartaa in ay isu soo dhawaadaan arrimo badan oo la tabanaya baryahan ay ka qayb qaataan marka arrimahaas waa dawladda Eritrea kaalin bay ka qaadan doontaa wasiir waxaa kaloo jirta in Eritrea oo haatan aad joogtaan ay colaadi kala dhaxayso dalka Djibouti oo dhul ay ka haysato dawladda Djibouti waxay aad u raadinaysaa in heshiis ay la gasho dalka Eritrea marka labada madaxweyne ma ka wada hadleen arinta ka dhaxaysa Eritrea iyo Djibouti door intee leeg ayuuna madaxweyne Farmaajo arintaasi ka ciyaari karaa walaal anaga waan dareensanahay waan ognahay in colaadaha iyo khilaafka u dhexeeya Eritrea iyo Djibouti madaxweynaha Soomaaliya halkan ay joogaan maslaxada dawladda Djibouti iyo ridka dhanba waa ogsoon yahay inay tahay colaadaas in laga gudbo dawladda Djibouti waa arrinkaas ay cadeysay annaguna kulanka hadda lagu soo qaaday kuma dhihi karo kulanka weli waa u socdaa laakiin madaxweynaha waxaa ka go'an inuu madaxweynaha kala hadlo arrinkaas waa tahay wasiir dhinaca kale waxaa jirta in magaalada Asmara ay xarun tahay ururka ONLF oo soo dhaweeyay imaanshihiina Asmara madaxweynaha Soomaaliya iyo idinkuba diyaar ma u tihiin inaad la kulantaan madaxda ONLF ee Asmara ku sugan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta doorashada uu soo dhaweynayo
waxaana dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan u sheegaynaa inaan diyaar u nahay inaan la kulano oo aan la fadhiisano oo maaragtay anaga iyagu wada hadal macnada oo dhex maro madaxweynaha Soomaaliya diyaar u yahay laga yaabo in caawa la isarko. wasiir ONLF waxay rajaynaysaa oo ay naawilaysaa in madaxda Soomaaliya ay raaligelin ka bixiyaan dhiibistii qalbi dhagax iyo in weliba jabhadda lagu tilmaamo inay xiriir la leedahay argagixisada. marka madaxweyne Farmaajo diyaar ma u yahay bay kula tahay inuu raaligelin ka bixiyo arrintaas? walaal xasuusta aan dib u celiyo dadka Soomaalida ee dhageysanaya adigaba arrinka qalbi dhagax waa ogsoontihiin baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka gaaray go'aan dadka Soomaalida ay u riyaaqeen madaxweynaha Soomaaliya waxa uu soo dhaweeyay go'aankii ku aadanaa arrinta qalbi dhagax. marka muddo haddii uu jiro qaraaro iyo dhibaatooyin ka fara badan ama degada laga xalinaa in meesha laga saaro dowladda Soomaaliya diyaar bay tahay laakiin anagana ma soo gaarin apologize aan rabnaa iyo warjaal aan rabnaa iyo raaligelin aan rabnaa. waxaan kaliya sheegay tahay dowladda hay'adda sharci dejinta oo hooyo u ah hay'adaha siyaasadeed qaranka go'aan ay ka soo saartay dad badan oo Soomaaliya iyo xalsan sheegay madaxweynaha go'aanka uu taageeray inaan halkaan ku qaabilno diyaar u nahay. waa tahay laakiin wasiir mar haddii ONLF ay raaligelin doonayso inkastoo ogahay in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay go'aankii baarlamaanka haddana isaga iyo weliba xukuumadda Khayre oo go'aanka dhiibista qalbi dhagax iska lahayd midna kamuusan hadlin sidii qalbi dhagax loo sii daayay ama dhiibistii qalbi dhagax kadib. marka miyayna haatan habboonayn in dowladdu ay bannaanka timaado oo haddii khalad dhacayna khaladka qirato kadibna raaligelin bixiso oo horena loo sii socdo? walaal mar haddii la is arkayo waxaan ku ogaan karnaa miiska marka ay soo fadhiisaan waxa ay miiska soo saaraan. miiska marka ay soo saaraan oona wada fadhino oo aan media isu marsiinayno waxay la tahay in waxyaabo badan xanuun ah laga gudbi karo ama mugdi ah laakiin mediaha warkaabay qabaan oo anaga iyagana qoraal uga haynin oraahna aanan uga haynin aan rabnan inaan iyaga aragno iyagana ayna rabaan inaan aragno waxay la tahay waa yeelaynaa iyo waa ka raaligeynaynaa iyo inaysan mowqifka ugahayn waxaan nahay dad soo dhashay miiskaasay soo saari doonaa wixii ay tabanayaan. kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle.